waxaan ku arkay, I saw it in Toronto. All Somali girls are befriending Jamaicans. And Somali men are getting angry. They are getting mad. Toronto ayaan ku arkay gabdhihii Soomaaliyeed oo Jamaican wada raacay. Raggii Soomaaliyeed way xanaaqsan yihiin, waali ayay isku rideen. Waxaan ku yiraahdaa maxaad macna darro dhiikar isugu kicinaysaan. Sababtoo ah Jamaicanka waxba kama qaadi karaan oo uguma hanjabi karaan sideenna oo kale markii aan wadankii joognay. You see the reality? Why Somali? Anaga dad geesi baan nahay. We are Jamaican. Why can't we stop them? Why don't we stop the Jamaicans from our girls? Waad aragtaa xaqiiqda jirta soo maaha. Maxaad Jamaicanka u joojin weyseen? Maxaad Jamaicanka gabdhaheena uga celin weyseen? There is this cultural belief that a Jareer or a Madiban or Gaboye, he cannot marry the other Somali group. Why? Waxaa jirta caqiida dhaqameed oranaysa Jareer, Madiban ama Gaboye ma guursan karaan Soomaalida kale. Maxay tahay sababtu? Ii sheeg maxay tahay sababta aysan u guursan karin? Tell me, why can't he marry? What is the reason? I was teaching at York University in Canada. ورنا على عبودك يا قال والله you know مذهب كلا الصع. And I tell them, welcome to the real world. waxaan macallin ka ahaa jaamacadda York ee dalka Canada. waxaan arkay arday Soomaali ah oo ka cabanaysa cunsurinimo. waxaan ku yiraahdaa ku soo dhawaada dunida dhabta ah. sababtoo ah anigu waxaan qabaa tababar aad idinku isiiseen markii aan dalkii joogay. waxa aad ka cabanaysaan waxba iigama duwana jabdoolsha. xitaa hal maalin oo kaliya weligay cunsuriyad kuma dareemin Canada. sababtoo ah idinka ayaa horay ii tababaray. I never felt even single day in Canada that I was discriminated. Never. Because I was already prepared by you guys.